حزبك كلمية أما جمهورية الصومال لامبا حولها حزبك كلمية القبل كتقدر دمانتي وحدك السلام يا أنا دلله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقردن بالشوقة كلمة أنا هالكنو فردينا كلمة بانكو ورندونا أنا وضعني ما أنت واحد بدن كده يران ما يو مالندو وأنا زورني ما فهمتين أرتا يا مالندو يا وخاصة بنا نسلينه ولا يود بملاه وحكي هذان وعلى ما فرض الله يسويه ما حال يسوفاني لكن واحد دوني يدور كلمة دودنا كيدا هو مشرع حزبك كل مياه أهل قدومية مجاهد مسبيح عبدي وهرين وحال لي هاي وحوالك قدوميه وشوقا ومشرع ومدمان تيبا وحو يسيد الوقع هذا لها كادرك مركانو كهاد لنا دلنيرو كادرك معنيه هذو ما هذو كادك قادو والله قافل يينات كادك قادتو هواك والله قافل يينات كادك قاتان dadka waaweyn waa laga filayaa inay ka qaar ka qaataan waxa la doonayaa qof walba inuu dadaalo oo uu ka fakaro xaafadiisa iyo xaafadaha kale iyo saaxiibadii mid walba hadduu qofku mid gaboobay yahay oo gaboobay waa socon kareen iyo hadduu yahay mid xanuunsanaya inaad ka warhaysaan oo aad soo qaadaan ama tuqaan saartaya ama tigu kareysaya ama dhabarka saartaya waxa laga rabaa inaad keento goobtii uu kaadhka ka qaadanayay oo horta u diyaar garooba waxa lagu kala hagaagayana waxa weeye waa kaadhka in badan baa laga hadlay isdhigashada oo qofka bini aadanka hadduu isdhigto khatarteeda ay leedahay xisbiga kulmiye horta mujaahidiintu da isma dhigtaan ma fahanteen ninku markuu mujaahid yahay oo hawlo badan uu soo galay horta isma dhigto marka anagu mujaahidkan u biqimayne idinku ha isdhiganina saaxiibadii isdhiganin family-giina iyo isdhiganin cid alle cidda aad garanaysaa waa inay kaadhka qaataan waxaan ku darayaa dhallinyarada faraha badan ee halkan jooga in badan baanu saragnay anigu waxaan joogay halkan muddo anigu wasiira dawla ah 26 habeen baan halkan burco weydii hawlaha ka yartaagnaa iskuulada burco dhallinyarada waxaan u sheegay 26 ka cisho iskuul walba waan maray waxaan mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland gacantiina ku jira Soomaaliland mustaqbalkeedu waa dhallinyarada laakiin haddii afmiishaar iyo caaqil aan doonayn Soomaaliland inay hagaagto idin kala qaybiyaan oo qabiil idin kala qaybiyaan mustaqbalkaas gacmihiina uu ka baxaya waxaan kale u sheegay inay isku duubnaadaan oo ay meel ka soo wada jeedaan sababta isku duubnaanayaan ay tahay dalkan baan ku idhaad maanta la leeyahay reeriya bay isu haystaan iyo hebel bay isu joogaan waxaan rag badan baa u soo dagaalamay oo u dhintay oo inaga hooseeya oo kumanaan ah oo magacooda mid walba aanu garanayno raggaa inaga hooseeya waxaa kaloo jira rag badan oo maanta aan tamarinaynba dhaawicii soo gaadhay iyo waxyaabaha kale maxaan ku dhahdaa ay ku jira oo xaaladooda adag tahay waxaan kaloo u sheegay rag badan oo socda oo dalkan u soo halgamay oo dhaawacmay oo xabadaha ay ku jiraan ayaa horta keenay cisigan iyo sharaftan iyo waxan ay ku nool yihiin war maanta waxaan idin leeyahay horta raggaan ka hadlayay kuwii jihaadeen ilaaha u naxariisto kuwa maanta aan tamarinayna mujaahidkii ama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu qaban karay uu qabtay ninka qaban doona ee kale xabaduhuna ku jiraan dalkana u soo dagaalamay horta waa Muuse Biixi Cabdi foodka siiya foodka inaad siisaan markaad kaadhka qaadato waa inaad samaysaa qodobka kale aan leeyahay waxa weeye war xusbinimadu macnay leedahay xusbinimadu iyo dulqaadnimadu iyo siyaasaddu reer Soomaaliland waa inay macno ku fadhidaa
ninka dalkan u soo dagaalamay ee xisbiga kulmiye u soo dhisay raggii siilaanyo la dhisay ninkii dhinaciisa taagnaa axmed maxamuud siilaanyo ninkii samreeyey ee wax walba ka soo marayey ee maanta ay wakhtigiisii timi haddaanu ka hadli maayo qolyaha marba xisbi u booda ma fahanteen yaa markuu in yar ka arka maaragtay yaa anu ka hadli maayo kuwa waxaan ka hadlayaa ka aaminsan wuxuu madaxweynenimadu yahay uu soo doortay waxaan ka hadlayaa ka aaminsan guddoomiyaha xisbiga ee taariikhiga ah wuxuu soo galay waxaan ka hadlayaa ka aaminsan malaayiinka kumanaanka xisbiga kulmiye ee ay ku walaaloobeen kulmaniinada qura iyo halka gaadheer ay soo wada galeen war muuse biix cabdi wuu soo samreeye taadeer maanta wakhtigiisi joogtaaye ta waa inaad foodka siisaan miyaanay ahayn dee horta miyaydaan diyaar ahayn waxaan raacinayaa war soomaaliya waxa ka soo yeedhaya waa garanaysaan farmaajo maalin walba wuxuu yidhaahdaa weli rag baa inoo haysta inaynu qayb ka nahay soomaaliyanu gobol ka mid nahay yani qofka bini aadamkii tee u xaqiiqada ka fogaan karaa meelay iska yar shabahaan waddan iyo qolyahaas ma fahanteen yaa xaqiiqaday ka fog yihiin sharci baana ilaalinayn komishinku hagaajiyey waxay moodayaan maaragtay maalmaha berigaan maraykanka imaan waxba garanayn waxaan arkun marba qolo magartay dhallinyaro oo marba xisbi footino markaasaan anna waan yar kacsanaa berigaas ma fahantay ma garanaysaa markaasaan qolo ku yidhi inaan maadeerna iyo gruubkan wareedha ونوصل كم كله وحنا سلا واحد بوبنتي الله ويلنا ردوم وري ka fikirin waxa waanu ka yar xaraawaysanaa ma fahanti xaraawaysi waa kalbada xaraawaysiga waa maalintii ugu horeysay waxaan leeyahay xaraawaysiga way dhaafaysaa oo runtii tegaysaa sidii berigii siilaanyo baa u tagtay horta ma garanaysaa yaa ayay horta tegaysaa waxaan leeyahay farmaajo wuxuu mari doonaa halkii kuwii ka horeeyey 20 sannadood ee aynu jirnay ay mareen biidmillaahi kariimna waxaynu farmaajo aynu ku beegaynaa oo dalkan madaxweyne ka noqon doona mujaahidkii soo dagaalamay xabadihiisa ku jira waxaan kaga baxayaa reer Togdheero ama jamhuuriyadda Soomaaliland oo meel kasta aad leedihiin ama xisbiga kulmiye qaaliga aho ninkii damalka ahaa ninka damalka dalkan ka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamay harsata ee hormoodka ah halganka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay horta waxaan ka bayaa ilaahay cimrigiisa ha jiraajiye mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo markii ragga muranka galay madmadowga ragga qaar ka galeen meel wax iska yartuseen waa kii hadlay war wuxuu yidhi halgankii intaa ictiraafka helaysa 100 sannadood naa qaadatee waxaan ku ogahay maanta mujaahid Muuse Biixi Cabdi Silaayo ma hadal badna nin hadal badan maaha laakiin waxa ogaataan markuu hadlo hadalkiisu meel buu ku qotama ورياضة